kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida aad ka joogtaan kusoo dhawaada musalsalkii walaalaha waqtiga kala waacay ama afarta walaalo xalqadiisii cusub ee 19 turki ahaan afka soomaaliga ama astaan daramana waxay u dhigantaa xalqada 91aad ilaa xalqada 95aad shantaas xalqa iyo u dhigantaa waxaana rajeyneynaa isbuucan in lasoo diin doono oo isniin ilaa iyo jimco aad daawan doontaan shantaasi xalqo maadaama musalsalka in muddo ah uu maqnaa hadeer dib ayuu usoo laabtay isagoo season 2 ah ama qeyb cusub ah. haddaba musalsalka waji cusub ayuu yeelanayaa. marxaladii hore waa laga soo gudbayaa siday u muuqato sir badana dibadii imaan doonta. waxaan falanqeyneynaa waa xalqadii guud ahaan dadkii musalsalkan jeclaha ogaada musalsalkii waa la bilaabay maalin walbo axadna halkan ayaanu kusoo falanqeyneynaa xalqad walbo cusub oo lasoo bandhigo. xalqada waxay ka bilaabanaysaa intaynan xalqada gudagelin kanaalkeena filim sida media qofkii ku cusub subscribe saarto oo musalsalkan la socdo axad walba uu soo dhici doonaa. sidoo kale tan muuqaalka like-ta lagu badiyo dad badan muuqaalkan uu gaaro mar walba like-ta aad badisid oo muuqaalka like aad saartid waa mar walba muuqaalka uu dad badan gaaro waa maasantiin sidaas ku dadaala. xalqada waxay ka bilaabanaysaa sidaan wada ogeyn qadiir wuu xirnaay isagoo xabsiga ku jiray ka bilaabanaysaa. qadiir intuu xabsiga ku jiray marxalada adag ayuu la kulmayaa. dad xunxun ayuu xabsiga ku baranaya kuwo wanaagsanna wuu baranaya. laba nin oo xun ayaa waxay dhibayeen oday meesha ka shaqeeyay oo shaaha iyo cuntada dadka siisiinayay. odaygii ayay nafta u keenayeen. qadiirna arrinkaas uma dulqaadan kari wuu ka falcelinaya odaygii ayuu dadkii labadii nin ka celinaya. labadii nin qadiir ayuu ku bilaabayaan hadalla qalafsan ayay kula hadlayeen sida inay dhahaan oo kaleeto kalkaalisa ayaa timid bal fiiriya dadkii ayay xaaladoodii ogaanaysaa. anagana madaxa ayaana xanuunayay may xaaladiina ogaato. qadiir ayaa dumar laga dhigayaa weliba kalkaalisa. qadiir hadalladaasoo dhan uu dulqaadanaya raggiina si degan ayuu ula hadlayaa. maalinkii koowaad sheekadii meeshii ku afjaray laakiin si raggii waa rag xune sheekada meeshii kuma joojinayaan. maalinkii labaad haddana odaygii ayay dhibayaan isla oday waayeel ah way meeshii ka adeego. qadiir mar labaad ayuu odaygii ka celinaya raggiina wuu garaacaya isagoo markani u gacan qaaday ilaan iigii ayaa gacan qaad bilaabeen isagiina wuu u jawaabay. askartii ayaa meesha imaanayso maadaama nimankii mid kamida oo mindi lasoo baxay ama toorey kadibna qadiir geli intuu islahaa ayuu saaxiibkiisii dhaawacay. ninkii ayaa saaxiibkiisi dhaawacay mindidii uu qadiir u waday ilaan qadiir wuu ka leexday. booliskii dadkii ayay wareysanayeen dadkii oo dhan qadiir ayay la jirayeen waxaana la dhahayaa labada nin dhib ayay nagu hayeen xabsigan halaga bedelo. sidii ayaa labadii nin loo bedelaya qadiir ayaa loo sacabtumaya. ninkii odayga ahaa qadiir ayuu amaanaya wuxuu dhahay naftiidaad badbaadiso xataa higeesi waxaan lahaa wiil adigoo kaleeta ah waan kugu faanaa wiilkeygii. qadiir dadkii ayuu jacaylka kasbaday noloshii xabsigana wuu la qabsaday. dhinaca kaleeto cumar isaga wuxuu joogaa xeradii agoonta qeybta ragga. aasiya iyo ameelna waxay joogaan xeradii agoonta qeybta dumarka. taleefon ayay ka sheekeysanayaan muuqaal video ayay ku sheekeysanayaan xaalada iswareysanayaan walaalihii waa cumar oo labadiisii gabdho xaaladooda labadii gabdho isaga la dhashteen xaaladooda ogaanay. laakiinse gabdhihii waxay xabsiga yaanan dhihin xerada agoonta wayey waxay ku dhex baranayeen gabar aad iyo aad u dhib badan laakiinse qalbi nadiif ah leh. gabadhaas waxaa lagu magacaaba waa Jamiila waa gabar cusub oo taxanaa soo gashay. gabadhan iidana gabar kalaa la dhalatay laakiin dhowaan ayaa meesha laga watay gabadhii kale cid kala wateen oo korsanayaan. gabadhii Jamiil ahayd ayaa meesha looga tegay. marka gabadhan way cidlootay meeshii iska joogtay waxay baranaysaa aasi iyo walaashid amal ayaa boombale ee gabadhan lahayd ku ordayso. gabadhii Jamiil ahayd qayli bilaabaysa waxay leedahay alaabteedii iga leexdii kalena ku dilay. aasi waxay dhaysaa gabar yar weey ma gabar yar ayaad boombale u diidaysaa xun maxaa kugu dhacay isdaji. Jamiila waxay dhaysaa alaabteeda ha iga taabanin labadiina waan idin digay. maalintii koowaad dagaalkaas ayaa dhex maray. maalinkii labaad nin iyo naag ayaa imaanayaan xeradii agoonta ayagoo caruurtii masaakiinteed wax u qaybinayeen. ninkaas iyo naagtaas waxaa dhowaan marka dhimatay gabar yar ay dhaleen. gabadhaasna waxay shabahday gabadhan yar ee amal ah ee asiila dhalatay. ninkii naagtii gabadhii ayay amal ahayd ayay ka helayaan waxayna dalbanayeen in maalmaha inay la soo joogto oo amal ay ka xistaan. laakiin amal hadal ayay soo xusuusanaysa gabadhii Jamiila ku tiri. hadalkaas wuxuu yahay
gabadhan way xanuunsan tahay hawadanina. Marka aasiyana waxay dhehaysaa maxaa walaashay wax aysan ahayn ugu tilmaamaysaa iyo waxyaabo xunxun oo ceeb ah. Waxaas oo dhan waxaan u sameeyay leedahay Jamiila hadlayso, waxaas oo dhan waxaan u sameeyay leedahay walaashaa in lagaa wadanin, sababtoo naagtan waan aqaanaa, carruurtay kaxaysataa. Marka waxaan is dhahay gabadhan yar iyo Amal ah way kaxaysan rabtaa, gurigeedii geysan rabtaa, sidaasaan u dhahay. Amal way cabsanaysaa, marka hadalkii Jamiila ay soo xasuusinaysaa maalinkii labaad haweeneydii iyo ninkii oo isla jiraan ayaa xafiiska imaanayaan, iyagoo Amal dalbanayaan inay kaxaystaan, in muddaha gurigooda kusoo haystaan. Amal markii arrinkii maqasho way ordaysaa, meeshaas xerada agoonta guriga korkiisa dabaqay fuulaysaa iyadoo cabsanayso. Laakiin nasiib xumo meeshii ayaa lasoo damayso, way soo dhici gaaraysaa, meel bir yar meesha ku taalay qabsanaysaa. Aasi way qalinaysaa iyadoo walaashid badbaadin rabto, waardiyaashii iyo haweeneydii meesha ka shaqaynaysaa celinayaan Aasi. Laakiin gabadhii Jamiila ayaa fag dhahayso, gabadhii Amalay ahayd ayay soo badbaadinaysaa. Waa Jamiiladii marka hore nacaybkii xanaaqa ka muuqday ayaa haddeer naxariis muujinaysa. Marka waxaad ogaanaysaa inay qalbigeeda u nadiif yahay. Jamiila waxay soo badbaadinaysaa Amal, aad baana loogu mahad celinayaa. Sidii ayay Jamiila iyo Amal iyo Aasi saaxiib ka noqonayaan. Jamiila dhibkeedii oo dhan ayay uga sheekeynaysaa gabadhii Aasi ahayd. Aasina dhibka haysta iyo sababtay halkan ku imaadeen in walaalkeed la xiray, dambi uusan galin lagu nabay, sidoo kale tan hooyadeed aabaheed ay dhinteen. Qisadeedii oo dhan ayay uga sheekeynaysaa. Meeshii ayay isku baranayaan, saaxiib ayay noqonayaan. Jamiila boombalihii ee Amalay oo diidaysay way siinaysaa. Waxaa leedahay Amal, boombalahada qabso, adigaa maanta kadib iskale, walaashii ayay hadiid ahaan iigu keentay, midda kaletana walaashii waa la guursan rabaa dhowaan, iidaab inta iga wadayso. Waxaan ii ballan qaaday inay halkan iga kaxaynayso oo gurigeyda aan kula noolaanayo, in muddo unbaan halkan ku jiraya. Sheekadoodii sidaasay marka isku baranayaan Jamiila, Amal iyo Aasiya. Dhinaca kaleeto ninkii duruq ahaa sir ayuu ogaaday, sidaan wada ognahay musalsalkan xalqadii u dambeysay sinsowankii ama xalqadii 9aad ama xalqadii 18aad ee Turki ahaan sidaa xasuusataan. Duruq wuxuu ogaaday in aabihiis uu toogtay yarkii Orhan ahaa ee Caakif la shaqaynay. Aabihiis ayuu balaminaya, marka ugu horeysa wuxuu leeyahay aabihiis sidaas ma samayn karo, keligiisa isla dooday. Wuxuu dhahay aabihii ma toogan kara sidaas. Wuxuuna soo xasuusanayay hadalkii tolka uu sheegay. Wuxuu dhahay aabba ayaa waxaas oo dhan sameeyey, dambigii oo dhanna wuxuu dusha u saariyay Qadiir. Aniga nin dhiigaa wax walba ku arkay, adiga hadda laba mid kala dooro, inaad baxdid ood booliska wax walba u sheegtid, Qadiirna aad soo badbaadisid, ama inaad shib dhahdid oo aabbaha difaacdid, dadkaas afarta walaalay masaakiintaana aad dhibka ku fiirsatid. Labadaa mid una wey. ninkii daruq ahaa booliska ma aaday, aabihiis ayuu wareysanaya, aabihiis ayuu u wacay, wuxuu leeyahay degdeg igu imow, meel heblayaa jooga. Odaygii wuxuu leeyahay miyaad i amraysaa? Bal waaya waan imaanaya. Markaasuu Caakif intuu wadada kusoo jira wuxuu isleeyahay haddii aan aniga ahaan lahaa aabihii taleefan ayuu ilaqsiin lahaa. Wiilkan daruq ah waa madax adag, aabihiis ayaa sidan uu la hadlaya. Aniga haddaan ahaan lahaa bedelkiis oo aabihiis sidan uu la hadli lahaa, moobeelku ilaqsiin lahaa, biyo xitaa ima siiyeen. Meeshii ayuu u imaanaya, wuxuu leeyahay wiilkayga maxaa kuu daran, bal ii sheeg. Wuxuu dhahay aabba Orhan adiga miyaa toogtay oo xabad ku dhuftay, dambigiina dusheed Qadiir u saaraysa miyaa? Waxaas oo dhan waan soo ogaaday, tolka ayaa ii sheegay. Ninkii Caakif aad iyo aad ayuu u yaabay, wuxuu leeyahay waxaas waxba kama jiraan oo marka hore dhahay. Haddana wuxuu dhahay yaa kuu sheegay, tolka keligiis miyaa meesha joogay mise cid kale joogtay? Duruq waxa uu cadaanaysa in aabihiis qaladkaas ama dambigaas uu sameeyey. Wuxuu dhahay aabba maxaa sidaas u samaysay? Ugu dambeyn Caakif laba arrin ayuu kala dooransiinaya wiilkiisa. Wuxuu dhahay ama waad baxaysaa saldhigga booliskaad aadaysaa, wax walbood u sheegaysaa, waxaa leedahay aabi ayaa sidaas sameeyey, dhabarkii iga tooga wiilkaygiyo. Laakiin waxaad ogaataa aniga marna uma ogolaanayo in lay xiro. Maalinkaad booliska u tagtidna madaxan iska tooganaya, gurigaygan isku dhex dilaya, booliskana midkayga u imaanayaan. Haddii kaleeta igu kalsoonaa arrinkan aniga xalinaya, Qadiir waan soo deynaya, wax walba waa xalinaya. Inta uu kasoo naaxayo Orhan soo iga sug. Mar allaala markuu Orhan soo kaco, hadeer isbitaal ayuu yaalay. Markuu soo kaco waxaan oo dhan aniga xalinaya, Orhan anaa la hadlay. Ma iga warsugi kartaa intii intaas? Duruq wuxuu dhahay ka waran hadduu Orhan soo kici waayo maxaa samaynaysaa? Qadiir meeshis miyuu ku jiraya? Aniga wuxuu dhahay waan kula hadlay. Caakif hadalka soo gabagabeynaya wuxuu dhahay waan kula hadlay, labadaas arrin ku kala dooransiiyey, adigay kuu tala wixii aad dooqan lahayd. Wuu iska soo baxaya. Duruq gurigu imaanaya, habeenka casho wuu diidaya. Hooyadiis ayaa u tagaysa, waxay leedahay wiilkayga maxaa kugu dhacay? Caakif wuxuu isleeyahay ama wiilkeeda hooyadiis ama wax walba u sheegaa, uu soo dhexgalaya. Haweeneydii taleefan ayaa usoo dhacay, meesha way ka tagaysaa. Kadibna wiilkiisa ayuu la hadlay. Wiilkayga wuxuu leeyahay waan kula hadlay, aniga waan ogahay inaadan dhabarkayga tooganin, inaad i jeceshahay. Waxaan ku dhahay samee tartiib, isdeji, wax walbana degnaan ayaan ku dhammaynaynaa.
intaas markii dhacday kadib muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Shangul iyo Abika sidoo kaleetana Ogoljan iyo waliba aabahood nolol silac ayay ku jiraan. Waxay tagayaan Shangul walaasheeda haweeney ayaa la dhalatay, gurigeedii ayay tagayaan. Haweeneydaas nin baa qabo, ninkii wuu diidaya inuu soo dhaweeyo martidan oo dumaashidiis iyo ninkeedii iyo caruurteedaba. Wuxuu dhahay biil yar baan qaataa sidee walaasha iyo qoyskeeda aan gurigan ku dajiyaa. Haweeneyda waxay leedahay walaashay way dhiban tahay. Shangul waxay soo xasuusanaysaa wixii ay ku sameyn jirtay afarta walaalo sidii u qaylin jirtay. Muuqaal xusuus ayaana la tusayaa markii afarta walaal gurigooda ay soo degay markii hooyadeed aabood ay dhinteen gurigeedii ayay inay soo degeen rabeen sida adeerkood uu qorsheeyay sida xasuusataanba. Laakiin Shangul way diidi jirtay, waxay dhihisay caruurtan kiilkooda ma qaadi karno, sidii ay iidi sameyn jirtaa lagu sameynayo. Waxay dhan ayay soo xasuusanaysaa, waxay leedahay waa aniga waan habaaranahay, waxayna caruurtaas ku sameeyay Qadiir iyo walaalii sidan ku sameeyay ayaa anigii qoyskaygaba hadeerna lagu sameynaya. Laakiin waan iska dulqaadanaynaa. Ugu dambeyn adiga meelay jiiftaan baa la siiyey, meeshii ay iska degnaanayaan aygii ayaa wax samaysto. Markaana waxay ku fikirayaan inay noloshooda dhaqaajiyaan. Caruurtii iskuulkoodii ayay sii dhiganayaan. Shangulna waxay dhihaysaa shaqadiida ayaan ku laabanaya, Marwani Bed ayaan ku laabanaya, Caakif xaaskiisa waan tugtugaya, shaqadii waan ku laabanaya. Oo wayba u tagaysaa Marwani Bed iyo markaas waxay isla joogeen ninkeedii oo cunto cunayeen. Shangul waa imaanaysa, waxay leedahay qaladaan galay, hal ii cafiyo, shaqadii waan kusoo laabanaya. Waa laga ogolaanaya. Waxaana arrinkaas dhameynayo ninkii duruq ahaa aabiis ayuu la hadlay. Wuxuu dhahay aabahay arrinkan adiga xalinay, aabihi waa nin markaasi qalbi wanaagsan, waana huwa Marwa Shangul inuu shaqadeeda dib ugu celinayo. Marwani Bed oo duruq hooyadiis marnaba ma aysan ogoleen Shangul inay shaqada kusoo laabato. Laakiin ninkan Caakif rakaata la geliyay, wiilkiisa Aray ayaa rakaatay, uu ku qasbay inuu shaqadii aqbalo. Wuxuu dhahay Shangul shaqadii waan ka aqbalay, shaqadii kusoo laabo. Marwani Bed arrinkaas yaab ayuu ku noqonaysa. Waxay leedahay maxaad uga ogolaatay shaqada? Haddana shibay iska dhaysaa arrinkii isaga dhaafsiinay. Dhinaca kaleeto Abika iyo walaalkeedii Ogoljan waxay ku laabanayeen iskuulkii. Ogoljan wuxuu booqanaya Cumar xeradii agoonta ku booqanaya, cunto u keenaya, xoogaa lacagna u siinaya. Wuxuu dhahay walaalo waan ku sugi doonaa inaad iskuulkii kusoo laabato. Wuxuu dhahay Cumar anigii aasi waxaan ku heshiinay inaan iskuulka ku laabanin oon shaqeyno, lacag fara badan aan shaqeyno, kadibna abukaata aan lacagtaas ku wareejinay si walaalkay Qadiir xabsiga looga soo fasaxo, abukaataasi uu u doodo walaalkay. Sidaasaan ku heshiinay. Marka iskuulka dir kuma soo laabanay ogow. Ogoljan wuu baxaya. Ogoljan markuu iskuulkii tago Abika iyo waxaa kulmayaan yarkii beerka ahaa. Beerka wuxuu dhahay Abika qorshaan kuu haya, shaqo yar ayaan ku siinaya. Shaqadaas waxay tahay anigaad i baraysaa waxbarashada, meel aan ku fiicnayn ayaa jirto, waxbaad ii aqrinaysaa. Muddadaas aad wax i baraysadna mushaar ayaan bil walba ku siinaya, mushaarkaas wuu ku anfacaya. Abika waxay leedahay walaalkii Qadiir ayaaba xiran, aasiya walaalkeed wuu xiran yahay, waa ina adeerkii anigana. Marka lacagtaas waanba u baahnaa, isagan kusoo diinaya. Marka isaga maalinkii xigta u imaanaya beerka, lacagtii ayuu farta ka saaraya. Wuxuu leeyahay muddo sanad ah lacagtii aad wax igu bari lahayd waata waan kuu soo hormariyay. Waxaad ku walaalka Qadiir ama inaad adeerka Qadiir waad kusoo diin kartaa oo yacni abukaataad lacagtan ku wareejin kartaa. Marka hore way diidaysaa, laakiin haddana way farxaysaa, way qaadanaysaa lacagtii. Dhinaca kaleetana isaga jacaylkiisa ayuu bandhiganay. Iyadana waxay leedahay walaalkii Ogoljan hadduu ka ogaado madaxuu kaa goonaya. Sheekadan jacaylkii jooji, waxbarasho aan iyada ku heshiinay, heshiiskeena sidaasuu ku soconaya. Sidii ay markaasi hawshii ku wataan, inkastoo Ogoljan uusan raalli ka ahayn, haddana wuu isku ogolaanaya markuu dusha sare ka arko oo wuxuu u malay inay wax wada baranayaan. Dhinaca kaleeto sidaan wada ogeyn Xariika iyo hooyadeedii Susaana, Marwa Susaana way guri ayay deganaayeen meel hotel oo kaleeta. Hotelkii qoladii hotelka u imaanaya waxay dhahayeen meeshana ma degnaan kartaan, lacagta inaad iska bixisaan waliba horumaris ahaan. Markaasay leedahay lacagtaas oo dhan ma awoodo, waan ka guuraynaa. Iyadii gabdhidii way soo guurayeen. Tuuladii ay deganaayeen afarta walaalo agtooda imaanayeen. Guriga meel ku dhow ay karaysan rabeen. Marwadii guriga leed ayay la kulmayaan. Lacag fara badan ayay sheegaysaa. Waxay leedahay 100 riyaal oo 100 liira oo lacagta Turkiga ayaa iga dhiman. 100 liiradaas marka inaad iga sugtid ayaan kaa rabaa. Marwadii way diidaysaa. Waxay leedahay markaad lacagta soo heshid kaliya gurigayga kaa kireynaya. Way iska soo baxayn, habeenkaas meel jiiftaan ma lahan. Laakiin waxa firaaqa gurigii deganaan jireen afarta walaalo waa gurigii lagu cayin jiray. Gurigaasaa firaaqay, cid degan male, fursaday helin habeenkaasi meeshay jiifanayeen. Sariir male, joori male, firaash male, dhulkay jiifanayeen.
xariika nolol xun ay dhexda ka gashay. Subaxnimo intay soo labisatay leedahay hooyana meeshan nagawad dhaqsiyana lagu arkin dadka dee nagu arkaan waa lii aflagaadiina. Markay dibadda usoo baxaan haweenaydii shalay borise ayaa haddana arkaysa. Waxay leedahay go-aankayga hore waan ka laabtay, ninkayga ila taliyay haddii waan ogolahay waad soo laaban kartaan, sidoo kaleetana gurigayga ayaad digaysaan, kiradii waan idin ogolahay, wixii aad awoodaan oo lacag ayaan idinka qaadaya. Marwa Susan way farxaysaa laakiin gabadheeda xariika mar walba isdagaalayaan. Gurigii markay degaan xariika waxay leedahay noloshan kuma noolaan kari hooy, noloshan naga bedel, waan dhibsaday, waan nacay, xal raadi. Susan waxay leedahay noloshan ayaad la qabsanaysaa gabadheedii, xal kale tamahay aniga shaqaan baadi goobaya, laakiin noloshii hore raaxada iyo taajirnimada haddii ma jirto waa inaad noloshan faqiirnimada la qabsataa. Xariika cuntadii loo goro xitaa kursigii ayaa kursi jaban u ahaay uu la dhacaya, aad bay u caroonaysaa. Marwa Susan waxay ka bilaabaysaa shaqo dhinaca meel carwo oo dharka lagu iibiyo iyo kabaha ayay shaqo ka helaysaa. meeshaas ayay ka shaqaynaysaa. Maalin maalmaha ka mid a meeshii waxaa imaanaysa Marwa Nabaad waa caakif xaaskiisii. Marwa Susan way nacabtaa iyada meesha imaanaysa. waxay u malaynaysaa Marwa Susan inay lacag heshay oo taajirnimadii ku laabatay, meeshana ay shopping ka samaysanayso ay u malaysaan. Laakiin haweeneydii meesha iska lahayd milkiilaha ayaa imaanaysa. waxay leedahay Marwa Susaney, waxaan kaa rabaa Marwa Nabaad inaad dadka dharka iyo kabaha kala tusisid, waa macaamiisheena qaaliga. Markaasay Marwa Nabaad qoslaysaa. waxay leedahay meesha inaad adiga wax ka iibsanaysaan buu malinayay, ilaa waaba ka shaqaysaan. halkaasay bahdalkeedii ka bilaabaysaa. adigoo Marwa Susan waa qof dulqaadanaysa, ileen duruuf ay haysatay, shib ay dhaysa hawsheedii ay wadanaysa, labiskii iyo kabihii kala tusaysaa. Marwa Nabaad way shoppingkeedii markay dhamaysatana goobtii way ka tagaysaa. dhinaca kaleeto waxaan u laabanaynaa afartii walaalo iyo waliba ninkii duruq ahaa. duruq wuxuu ku dadaalaya habeenii maalin sidoo arrinkan ku xalin lahaa. aasiyuu booqanaya, xaridii agoonta ayuu ku booqanaya, laakiin wuu ka qaranaya wax walba uu ogyahay inuu aabiis uu wax walba ka dambeeyay. wuxuu dhahay dhibkan waad ka bixi doontaa goordhow, wax walbana way dhammaan doonaan. waxaa leedahay inaad isoo booqato waan ku faraxsanahay. hab ayay isa siinayeen, meeshii ayay ku sheekaysanayeen. waxaa leedahay isbedelkana kugu arka maxay tahay, maxaad adiga isku eedeynaysaa, wax walba anaga nagu dhacay adiga eed kuma lihid. wuxuu dhahayaa isaga eedaan kuleeya ma dhihi kara, yacni aabiya wax walba ka dambeeya ma dhihi kara, laakiin isaga nafsadiisa ayuu eedeynaya. waxaana dhahaya waxba ka walwalin, wax walba way hagaagayaan, meeshana waad kasoo bixi doontaan. isagoo niido dhisayo ayuu goobtii kasoo tegaya. haddaba maalin kaleeto waxaa dhacayso Cumar, Aasiya, Duruq iyo waliba gabadhii Maliisa ahayd inay isa soo raacaan. waxay soo fiirinayaan yarkii ninkii Orhan ahaa ee xabadda ku dhacday ee isbitaalka yeelay, laakiin wuu suuxsanaa, ma uusan soo naaxin. marka inuu soo naaxa ay sugayeen, kadibna ay la hadlaan, kadibna ay dhahaan walaalkii waxba inuusan samayn waad ogtahay, noo soo daay oo booliska la hadal. sidaas unbay rabeen. marka isagii ayay dusha sarka ilaalinayaan. waxaa imaanaya caakif markuu meesha imaado wuxuu dhahay maxaad inta ka sameynaysaan idinka. markaasay dhahayaan waxaan ilaalinaynay inuu soo naaxay in kaleeto. meeshii ayuu ka diray caruurtii, wiilkiisa Duruqna u digayaan. maalinkii kaleeto caakif waxaa soo wacaya ninkii isaga gacan yaraha, waxaana u sheegaya in uu soo naaxay Orhan. durbo uu imaanaya caakif isbitaalkii. Orhan oo markaas soo naaxay qolkii nasiinada la geliyey ayaa waxaa u imaanaya caakif. wuxuu dhahay saaxiibkayga ayaa ahayd, walaalkayga oo kalan kaa dhigtay, gacan yarayga ayaad ahayd, waad i qiyaantay soo maahan, rakaataad igoysa falaashka isay, anigaad isku dayd inaad nolosheeda barbariso. ninkii Orhan ahaa cudurdaar ayuu sameynaya. wuxuu leeyahay waan kooxmay wax walboo sameeyey. wuxuu dhahay adiga dartaada Qadir ayaa xabsi ugu jira ma ogtahay, haddeer waxaan kaa doonayaa, waxaan kuga cafin karaa. Orhan cafis ayuu dalbanaya, isagoo dhibana ayuu cafis dalbanaya. caakifna wuxuu dhahay waxaan kuga cafin karaa in booliska ay ku imaanayaan. booliska markay ku imaadaan waxaad leedahay Qadir wax dambi uu leeyahay, maana Qadir soo daay. markaasuu wuxuu dhahay Qadir haddaad soo deynaysid marka hore maxaad xabsiga u gelisay, adiga dambigan oo dhan dusha ka saaray. caakif wuxuu dhahay maxaa kaa galay adiga, waxaan xabsi u geliyay, haddeer inaad soo deysid ayaan kaa rabaa, wax walban aad xalisid, falaashkana isii. wuxuu dhahay falaashka aniga maahay, tagsigii oo Qadir igu wada ayaan falaashkay kaga tegay, lambarka tagsigan ku siinaya ka baadi gooba. tagsigii ayuu u qoraya, lambar qaldan ayuu siinaya. tagsigii ayuu markaasi caakif ka baadi goobaya. ninkii ayuu tagsigii igu wada leeyay, lacag fara badan intuu tuso wuxuu leeyahay gaariga hortaada un fiiri, meel kale ha eegin. tagsigii ayuu ku raastay meel walba uu fagayo, markuu waayo uu qursado iska soo baxaya. dhinaca kaleetana Orhan wuxuu la hadlayay booliskii, wuxuu leeyahay Qadir wax dambi ma lahan. afartii walaalo mar xabsigii ayuu ku booqanayaan. walaalkood Qadir waa gabdhihii iyo Cumar. Maliisana dibadii joogtay, warqad jacayl ayayna u qortay saaxiibkeedii Qadir isagoo xabsiga ku jiro. Qadir in lasoo diin rabo ma oga, walaalaha xitaa ma oga iyaga naftirkoodii. kadib waxaa dhacayso in ay meesha ku booqdaan
meeshaas isku rajo gelinayn, wuxuu dhahay wax walbay dhamaanayaan, waa dib ayaan u wada kulmayna, waxba ha quursanina. Sidoo kaleetana waxay u sheegayeen inay lacag heleen oo lacagtaasna abukaataha la siin doono, isagana sidaas lagu soo diinayo. waxay kaloo siinayaan warqadii jecel iisoo dhiibtay Melissa, meeshii ayay ku kala tagayeen. Warqadii ayuu akhrisanayay Melissa, waxay usoo qortay marnaba ha qoorsanin, rajada lagama ha rajo dhigin, adiga ayaa jecelkii bari, waxaad kaloo ii bartay inaan la cabsanin oon la qoorsanin oon la rajo dhigin, haddana adiga ayaan midaas ku guwaninaya. Waxay kaloo u sheegaysaa inay si xad dhaaf u jeceshahay. Qoraallo ayay kor ugu soo raacin isagoo xabsiga ku dhex jiro, ayay waxyaabo baqshadooyin buufino oo kaleeta intay usoo habayso kor fiiri bay leedahay mar walbo ii haystid waa inaad kor fiirisaa. Sidaas adiga waxay ka dhigan tahay inaan anigana kor ka salaamayo oo kor aan kala hadlayo. Kor markuu eegana wuxuu arkaya qoraalkii ahaa waan ku jecelahay, isagana sidoo kaleeto wuxuu dhahayaa aniga basi xad dhaaf ayaan ku jecelahay, laakiin si isma maqlayaan. Warqadii unbuu akhrisanayay, iyada waa loo diiday inay gudaha gasho, waayo dadka wada dhiiga isla dhashta kaliya unbaa gudaha loo ogoliyay inay wada galaan. Dad isjecel ama xiriir uu ka dhexeeyo looma ogola. Intaas kadib ninkii Qadiir ahaa waxaa loo sheegay in la soo daan rabo. Maalintii dambe orahan wuu ka hadlay booliskii, markuu la hadlay Qadiir waa la soo daan rabaa. Ninkii Caakif ah wiilkiisa ayuu la hadlay, wuxuu dhahay waxaad ogaataa orahan wuu soo naaxay, Qadiirna waa la soo daynaya, wax walbood iga rabto waan kuu sameynaya, maxaad kaloo iga rabtaa? Wuxuu dhahayaa waan kuu imaanaya, waxaa kaloo kaa raba aniga kuu sheegay. Afartii walaalo ayuu u sheegaya, saddexdii kale aan dhahay iyo waliba Abika iyo Ogoljan kulli isla joogeen. Arrinkii ayaa loo sheegay, way wada farxayeen, igana way isgaarsiinayeen. Shangol iyo ninkeedii ayaa la gaarsiinaya, Shangol iyo ninkeedii xitaa gurigoodii waa loo soo celinaya. Duruq ayaana ka dambeeyay oo abiis ku kalifay inuu gurigaas iibsado gebi ahaantiisba. Shangol iyo ninkeedii gurigii kale, gurigii weynaa oo labada dhinac ahaa oo afarta walaalo iyo qoyska kale ay wada degnaayeen, Caakif ayaa iibsanaya. Caakif markuu iibsadana wuxuu ka kireynaya Shangol iyo ninkeedii caruurtii afarta walaal gurigood gurigii ayuu ka kireynaya. Umana sheegay inuu gurigaas isaga iibsaday. Duruq ayaana ka dambeeyay. Waxaasoo dhan nimankii milkiilayaasha ayaa soo wacayna, waxaa la dhahayaa gurigii waan idiin ogolaanay, dib ayaad u kiraysan kartaan, waad kusoo laaban kartaan gurigiinii. Sidii ayay ku wada farxayaan. Duruq waa la soo deenaya, aan dhahnay Caakif Qadiir waa la soo deenaya, gurigii ayay kusoo wada laabanayaan. Markii afartii walaalo dib u midooban gurigii kusoo laabtaan, Shangol iyo ninkeedii caruurteedii gurigii ayay kusoo laabteen, waxbarashadii ayay dib u fureen. Camar wuxuu dhahayaa aniga hadda waxay ka dambeeyay shaqaan raadsanaya, noloshii xumayd waan ka baxaynaa, bas hadda waxay ka dambeeyay nolosheena ayaan ka fikiraynaa. Ninkii Qadiir ahaa shaqadiisii iskuulku ku laabtay, meeshii kafeega uu ka shaqaynayay, sidoo kale shaqadii tagsigana uu ku laabtay. Shaqadii tagsiga markuu ku laabto waxaa la tusayaa falaashkii, waxaa la dhahayaa tagsigii adwadiisa ayaan falaashkan ka helnay. Caakif tagsi qaldana la siiyay, tagsigii saxda uu falaashku ku jiray, dadkii tagsiga wadeen ayaa falaashkii heleen, Qadiir ayay ku wareejiyeen. Qadiirna wuxuu dhahayaa milkiilaha tagsigan u geynaya, milkiilihii markuu u geeyay wuxuu dhahayaa aniga falaash ma isticmaaliyay, qof falaashkan raadinayn ma arkin, adigii walaalaha iyo computer isticmaalaan iyaga lee ogey. Wuxuu dhahayaa waa arrin fiican. Isagoo meeshii jooga nin baa imaanaya boorso lacaga wada iyo warqad. Wuxuu dhahayaa odaygii xabsiga kuula jiray oday Saalex la dhahay uu geeriyooday, warqadan ayuu kuu dhaafay, boorsadan uu kuu soo dhiibay, aniga waxaan ahay nin qaraabadiisa, boorsadii iyo amaanadii uu ka soo dhiibay waan ku soo gaarsiiyay, Allah u naxariisto. Ninkii uu dhintay ayuu dhahay. Warqadii ayuu akhrisanaya, warqada waxaa ku qoran wiilkaygiiyo Qadiir aniga waan dhiman rabaa, xaaladayda way xun tahay, wiil adigoo kale ayaan lahaa da'daada leh, sidaad adiga daacad u tahay ayuu daacad u ahaa. Wiilkayga ayaan kugu soo xusuustaa, aad baan kuu jeclahay. Boorsadaas markii ku soo gaartana ha diidin, anigaa ku siiyey, waxayna ku soo gaari doontaa xilli aan aniga dunida ku nooleen. Lacag aad iyo aad u fara badan ayaa ku jirto, ay ku taajiri karaan afarta caruur. Boorsadii Qadiir ma furayo, falaashkii warqadii iyo boorsadii buu soo qaadaya, walaalihiis ayuu u keenaya. Horta intuusan waxaasoo dhan helin, shaqadii kafeega oo iskuulka markuu ku laabto Melissa iyo halkaas kula kulmaya. Arrin sheeko jecel ayaana meesha ku dhex marayso. Waxa leedahay aad baan kuugu xiisa, meeshii ku dhunkanaysa. Waxa dhahay dadka hadayna arkaan aabahana una arko waa bes soo ma ogid, waxaan oo kale taa sameynin ayuu dhahaya. Waxa leedahay waxba igama gelin, hana arkaan cidiina arkaysana aragto. Kadib waxaa dhacayso ninkii tolka inuu iskuulka kusoo laabto, sababtoo wuxuu rakaatiyay Caakif tolka wuu qabto. Wuxuu dhahay waxaa adiga meesha ku dhigay habeenkaasi intaad
jirtid aragtad wiilkayga u sheegaysaa miya yad kale u sheegtay tolka wuxuu dhahay cid kale wax u sheegay ma lahan haddii aad doonaysa sirtaas inaan qariyo iskuulkii igu celi iskuulkaasaan ka hela aniga iskuulkaas igu celi aniga waxaan la saaxiibayaa wiilkaada duruq waxaan ku kalifay afartaas walaal inuu naco misana ka fogaado wuxuu dhahay wiilkayga ka laaxo wuxuu dhahay sirtaada haddii aad rabtid inaan kuu badbaadi cidna aanan u sheegin iskuulkaas adiga igu celin kara igu celi caakif sidii ayuu sameynaya wiilkii ayuu iskuulka ku celinaya tolka afartii walaalo iyo duruq ayuu iskuulkii kula kulmaya dadkii way yaabayaan waxaa laleeyahay ninkan siduu iskuulka kusoo laabtay wuxuu dhahay duruq waa saaxiibkaygii hore hadeerna waan heshiinay wax walbana way dhammaadeen arrinkaas waa laga wada shakinayaa amali aasi waxay qabsanaysaa duruq waxay leedahay maxaa tahay sababtan ninkan uga dhawaanaysid ilaan duruq waa la arkaatiyey tolka wuxuu dhahay haddii aad doonaysid inaan sirtan kugu qariyo haddii kale saaxiibtaa maxaa sirta uga qarisa adiga saaxiibtaa waxaad ka qarisa aabbaha inuu waxaan dhanka dambeeyey aniga miyaa u sheegay mise saaxiibtinimadeeda qasab ayaad ku ogolanaysaa aniyada saaxiibtinimada qasab ayaan kuusoo bandhigaysa qasab ayaad saaxiib igula ahaanaysaa duruq tala ku cad aasiya qabsanaysa waxay leedahay ninkan maxaa uga agdhawaanaysa waad ogtahay ninkan dartiis adeerkay inuu naafo u noqday ninkan dartiis in wax walba ay ku dhaceen sidoo kaleetana uu markaasi walaalkii cumar xitaa uu dilaa ka dhigi rabay marka waxaasoo dhan maxaa kugu kalifay inaad ninkan isagoo adoo og waxaasoo dhan inuu sameeyey ani abika xitaa uu noo soo dhigtay oo qalad naga galay ood ogtahay maxay tahay sababta ninkan aad uga agdhawaanaysid wuxuu dhahay waxay dhacay hadeer kuma sheegi kari sababta ninkan aan saaxiibtinimadiisa u aqbalay uga agdhawaanahay kuma sheegi kari duruq wuxuu ka cabsanayaa hadduu runta sheego in aasi jaceylkiisa ay iska diidi doonto hadduu dhaho aabe ayaa wax walba ka dambeeyey inay kala fogaanayaan ayuu ka cabsanaya sidaasuu runta u qariyey aasiya waxay dhahaysaa dee sidaasta waxbaad iga qarinaysa ood wax iga qarinaysid oo aniga igu kalsooneen aniyada jaceylkeena wuxuu dhexdeena jaceyl oo uga jira ayaaba qalad ah jaceylkeena meeshuu ku dhammaaday in muddaawan kaa fogaanaya ilaa adiga runta aad iga sheegtid nabadgelya leedahay labadooda muuqaal calaacal ayaa halkaasi uga bilaabanaya ayagoo markaasi ka xun inay kala tagaan haddaba xalqada dhammaadkeeda ninkii qadiir ahaa boorsidii lacagta guriga keenaya caruurta way farxayaan waxay dhahayaan lacagtii ayaan tiranaynaa cumar ayaa dhahaya aad baan u farxsanay maadaama taajiriin aan noqonay ayagoo lacagtii xisaabsanayaan shingol ayay albaabka kusoo garaacayso oo wado gabadhii jamiile ahayd ee aasi iyo isku barinayeen xaradii agoonta waxaa la leedahay gabadhan miyaa taqaanaa aasi adigay ku raadinaysay lacagtii waxay taalaa miiska shingol way arki rabtaa xalqadiina meeshii ku dhammaatay waxaan idin raacinaynaa goosgooska laga soo bandhigay xalqada 20aad ee isbuuca dambe la daawan doono goosgooska waxaana lagu tusayaa marwanabaad oo ninkeedii qabsanaysa waxay leedahay wiilkaas wuxuu arkay maxay tahay tolka ayay ka wada tolka sirtaadu ogyahay wuxuu arkay maxay tahay bal ii sheeg cumar oo falaashkii fiiran raba ileen walaalkiisii ay qadir ayaa siiyey cumar ayaa falaashkii computer geliyay wuuna arki rabaa sidoo kaleetana marwe shangol ayaa boorsadii lacagta xaday haddaba dhacdooyinkaas iyo kuwo kalena lagu tusay laakiin kama gaarnay wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu